war ololaha laga wado warbaahinta hal la joojiyo ololaha laga wado saakadan anoo diyaarinay khudbada diyaarinay mawduuc kale ku saabsanay su'aal baa ii soo dhacay nin baa weydiinay wuxuu leeyahay sheekhow reerkaygii reer kala islaynaya meeshaan joogay baa qaaraan laga ururinaya qaaraanka waxaa lagu iibinayaa hubkii reerku wax isaga dhicin lahaa anigana waxaa la yidhi qaaraanka keen haddaan qaaraanka keeni waayana waa lay goyn oo hadalkaa layga goosan oo waxba layla bixin maayo oo waa lay takooriyo tuka cambaar le baan noqon cudurdaar ma leeyahay inaan qaaraankaa bixiyo daruuro ma tahay ya warbaahinta ya social media ololaha ka socda ururinta dhaqaale ururinta shilin ninkii ku darsada shilin dhiigga muslimka meeshuu ka geli lahaa maalinta qiyaamada isaga garanaya hal kelimo oo taageero ah ninkii ku darsada ilaahay hortiisa markuu soo istaago dhuunta lagu dhago oo uu yidhaahdo rabbiyow kana ka qayb qaatay dilkii lay dilay meeshaad geli lahadaa garanaya adduunna khasaartay oo faa'iido ma hayso tolkaabaad isku laysay aakharana khasaartay oo naar baad ku gasho janno weyday lianna ilaahay agtiisa dunuubta laga galo shirki marka laga yimaado waxa ugu weyn dhiig muslim oo la daayo ilaa nabigu sallallahu alayhi wasallam heer wuxuu gaadhayaa midkood uu isleeyahay xaq baad ku sugan tahay waxna kuma sugna buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu saa wax u galaya waa isla qumayay qumanihiisa qoorta ugu jira koox buu ka socdaayoo kooxdiisu u arkaa inay xaq leedahay dadka kalena daalimiin yihiin qoys iyo reer buu ka socdaayoo wuxuu u arkaa inay xaq leeyihiin lagana gardaray bal waxa laga yaabaaba inuu daliishanayo oo uu leeyahay siday qabaa'ishu sameeyaan markay islaynayaan iyo ururada iyo siyaasiyiinta in qur'aanka iyo sunnada la luqunji baadho oo dulmigii lagu sugnaayo loo daliishado oo kii sida caqli la'aanta u ahaaye fasaad ka waday laga dhigo shahiid laga dhigo reerka difaacaysa nabi maxamedna wuxuu yidhi ruuxii isagoo xoolihiisa iyo naftiisa difaacanaya la dilo waa shahiid xadiidku waa sax laakiin kelimatu xaqin uriida biha baatil kelimadu waa sax nabi maxamedna waa yidhi laakiin fitankan kuma saabsana maxaa adiga madluum ka dhigay dulmisan dadka kalena daalimiin ka dhigay daalimiin baad wada tihiin waa ka nabigu sallallahu alayhi wasallam idha iltaqa almuslimani bisayfayhima falqatil walmaqtul fi an-nar muslimku haduuba isku kaco oo islaynayo oo qabaa'ishu ay islaynayaa deegaan baa la isku laynayaa war dadka dhulku waa wada deeqa alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata wadhulkan miyaana idinka dhigin mid idinku filan haddaad geeriyootaanna hoostiisa idin qaada haddaad nooshiina korkiisu waa idinku filan yahay goormuu dhulku dadka deeqi waayay marka meel yar iyo tuulo yar la isku laynayo ya ma yaree hebel waa inaan iska celino laa qaaliba walaa maqluub mid adkaaday ma jiro mid laga adkaadayna ma jiro cuquud 10 sano la islaynayay billahi calaykum maxaa laga dheefay mal faa'ida maxaa laga faa'iiday maxaa la isu leeyahay aqligii baa baxay garashadii baa baxday cibradii baa baxday waxaan duruustan banaanka taala aan u baahnayn ruux wax akhrin kara kaliya ee caamaygu akhrinayo limaada looga faa'iideysan lahay limaada waxaan u istaagi lahayn lianna waxa way uquushi baa maqan nabi maxamed baa sii sheegay salawaatu rabbi wa salaamu uquushi la siib saas daraadeed lama garanayo meel loo socdiyo meel laga socdo siyaasiga ay ka tustay kursigu ka tusay dhiigga muslimiintu isku laayowna waxaan ku leeyahay kuwii baabka bilaabay maanta khasaarsan allow yaa hebel iyo hebel oo qubuurta ku jira maanta soo warsada raggii dalka dumiyay oo qabaa'isha isku diray oo ummadda kala dilay oo ka ganacsaday oo kursiga ku raadsaday oo maanta dhulka ka hooseeya yaa soo warsada maanta siyaasiga jidkoodii hayowna waxaad ogaataa meeshaad ku dambaynto waa halkaas marnaba ku guulaysan maysid dhiig muslimood u daadisay kursi iyo siyaasad iyo madaxnimo u daadisay ku guulaysan maysid ummadana waxaan leeyahay garta
midka idinku danaysanaya iyo midka dantiina wada kala garta maslaxadana xoojiya dagaalku markuu bilow yahay wuxuu ku tilmaamay al-Imam Bukhari alayhi rahmatullah wuxuu yiri salafku ridwanullahi alayhim waxay jeclaan jireen markay fitanku kacaan in ay soo qaataan abyaad nin gabaya oo jaahili oo imrul qays la dhihi jiray gabayaal uu ka tagay hadal murti ah bay jeclaan jireen culimada salafku inay soo qaataan markay fitanku kacaan abyaadaasi xikma ku jirta wuxuu leeyahay oo macnuhu yahay dagaalku marka ugu horeyso uu bilow yahay gabadh yar oo dhalinyaro ah oo qurux badan buu eegay gabadhaasi waxay isu qurxinaysaa mid kasta oo jaahil ah oo aan aqoon lahayn garasho lahayn markay isqurxiso siina quruxsanay indhuhu la raacaya nin walba wuxuu rabaa inuu wax meel ka gaaro ka uu yar wuxuu rabaa inuu taabto wuxuu rabaa inuu dhunkado wuxuu rabaa inuu guursado wuxuu rabaa inuu la kulmo la sheekaysto way isqurxisay nin walbana wuxuu leeyahay qaybtaada ka qaado markii dabku huro fidnadu balaarato oo lagu gubto oo lagu baabao oo midhaheedii xumaan la taabtay natiijadeedii xumaan marka waxay noqonaysaa buri isu bedelaysaa habar nin la'aan oo kala habar duqa oo cirowday oo timuhu cadaadeen oo aan nin lahayn oo midabkeedii quruxsanaa isbedelay oo haddana urtay oo nin walba kahanayo inuu ursado ama dhunkado uu kahanayo wax la yaab leh ayadoo urtay oo isbedeshay oo kharibantay oo dal baabi'isay oo dhiig daadisay oo caruur agoomaysay oo aan waxba hambaynin oo natiijadeedii aan hayno yaan haddana doonaynaa sii wadnaa inaan dhunkanaan doonaynaa inaan ursanaan doonaynaa inaan ka qayb qaadanaan doonaynaa war natiijadeedii way soo baxday maad kuwaana qaadataan oo darsi ku qaadataan oo dabkan socda ma la joojiyo ka wada muu joojiyo ka kalena sidoo ku baabila ku damilaha maynu ka qayb qaadana waajib sharciye way xil iyo mas'uuliyadiina saaran way hawshaas in laga wada qayb qaato kuwa isku fitnoobay ee wada dhashay ee walaalaha isku diinta ana waxaan leeyahay ilaahay ka yaaba oo waxaan joojiya oo fitanka joojiya oo ka faa'iidimaysaan oo kala adkaan maysaan oo Soomaali qabaa'isheedii baa kala adkaan weyday oo qeyrkood baa kala adkaan waay dhiig kasta haduu daatay reer walba meeshu deganaa buu degan yahay war maxaa laga faa'iido hatta hadda dulmiga meel uu ku faa'iido maadan faa'iido reer ka adkaadi ma jiro kii ugu yaraa laga adkaan waay reerkii ugu dad yaraa laga adkaan kari waay la ghaaliba wala maghlub faa'iida la'aan waay dhinac walba markaad ka fiiriso wax faa'iido ma